kaas Caaisha radiyallahu anha waxay leedahay habeen ayada iyo nabiga oo wada fadhiya ayaa Caaisha nabiga habeen sheeko u bilowday sallallahu alayhi wasallam sheeko haweeneed ayay u bilowday sheeko haweenku ay ku sheekaystaan oo sheeko xariir ah oo xiliyadii hore dhaceen ayay Caaisha u bilowday in nabiga uga sheekayso alayhi salaatu wasalaam u fiirso nabiga alayhi salaatu wasalaam waa rasuulullah waana hogaamiyihii muslimiinta howlihiisa aad u badan mashquulkiisa aad u badan haddana wuxuu dhageysanayaa sheeko haween hore oo sheekaystay ay ku sheekaysteen Caaisha waxay leedahay nabiga alayhi salaatu wasalaam ayaa waxaan ku dhahay nabi maxamedow hadda ka hor ayaa waxaa fariistay way tiri 11 haween ah hadda ka hor 11 haween ah ayaa meel iskugu imaaday way heshiiyeen waxayna ku ballameen mid kasta inay ninkeeda ka hadasho wanaag iyo xumaan mid uu leeyahay inaysan wax qarinin ayay isku dhaarsadeen ayay tiri kadib waxay bilaabeen haween kasta inay nimankoodii ka sheekeeyaan 11 haweenka ahaa tii ugu horeysay ayaa bilowday inay ninkeeda ka sheekayso oo ay waxyaabihii tilmaamihii uu lahaa ay sheegto si kooban haweenkan waxay iskugu jiraan haween nimankooda dhaqamo xun oo leeyihiin ku tilmaamay kuwa kalena nimankoodii waxay ku tilmaameen dhaqamo xoogaa yar fiican oo ay leeyihiin awalba waxaa lagu heshiiyey nimankooda inaysan waxba ka qarinin ayaa lagu heshiiyey akhlaaqiyadkooda iyo dhaqamadoodii saa darteed midii ninkeeda u fiicnaana wuxuu ku fiicnaa bay sheegtay midii ninkeeda uu la xumaana wuxuu la xumaa ayay sheeg almuhim 10 haween ah ayaa nimankoodii ka soo hadlay oo ka soo sheekeeyay markay kulligood nimankoodii ka soo sheekeeyeen tii 11aad ee ugu dambeysay ayaa waxay tiri ninkayga waxaa la yiraahdaa Abu Zarci maxaa ka taqaaniin bay tiri islaantii 11aad ee u dambeysay waxay ammaan la goosatay ninkeedii Abu Zarci ah waxay ku sheegtay inuu horta meel cidla ah ka soo helay cid faqiir ah iyadoo la joogtana uu soo guursaday kadibna uu dahab iyo fardo iyo xoolo uu ka dhargiyay qaadimad iyo shaqaale uu keenay oo barqadii ay iska soo kacayso oo ehelkeeda waxay rabtay ay ka siisan karto ayay ku tilmaantay ninkii Abu Zarci ah taa kuma ekaysanina waxay haddana ammaan u gashay Abu Zarci gabadhii uu dhalay iyo wiilkiisii saasoo kale haddana waxay ammaan u gashay ninka Abu Zarci hooyadii oo ayada sodoh u ah qaybta ugu dheereed ayadaa qaadatay waxay sheegtay inuu yahay ninkii ugu fiicnaa oo wax kasta oo ay rabto siiyay hooyadiisna waxay ku tilmaantay hooyo ugu fiican oo deeqsiyad ah inay tahay qaadimadiisii xataa way tilmaantay islaantii shaqaalaha ahayd ee u joogtay ay ammaan ku huuday markii ay halahaas oo ammaan ku soo huuday ninka Abu Zarci ah ayaa waxay tiri maalinkii dambe Abu Zarci wuxuu aragyay tiri islaan laba cunug wadata oo sidii haram cad oo kala ah yar waxay kaliyeeda hoosteeda ku tuurtuurayeen oo ku dheelaayeen laba rumaan ah yani waxay ka wadaa islaantu waxay islaan caata oo dhaxyar oo qurux badan ay ahayd kadibna Abu Zarci way furay bay tiri islaantaas ayuu guursaday ninkay maanta dhan soo amaanaysay akhiiran uu furay kadibna islaanta ayuu guursaday sidoo kale islaanta waxay sheegtay in Abu Zarci gadaashi ay nin kale guursatay asagana hodan ah oo wax haysta oo wax siiyay oo ehelkaada waxa rabta siisa dhahay laakiin wali waxa maskaxdeeda ka go'ila ninkii Abu Zarci ahaa oo waxay leedahay hadii ninka wuxuu isiiyo dhan la isku dardaro ma gaartay bay tiri weelasha Abu Zarci uu lahaa weelkii ugu yaraa xataa ma buuxin kara yani hantidiisu iyo dhaqankiisu sidii Abu Zarci ma gaari karo qisadii markay saa u dhamaatay waa qiso haween nimankooda ka sheekeynay nabi maxamed cali salaam inta uu dhageysanaya waa 11 haween ah oo mid kasta ninkeeda ay tilmaamayso ay Caaisha ka sheekeynayso nabi maxamed inta uu dhageysanay sallallahu alayhi wasallam markuu dhageystay oo Caaisha warkii ay dhameysay ayuu yiri nabiga cali salaam Caaisha waxaan ku ahay sida Abu Zarci uu ahaa islaantii Zarci ahayd sida uu jeclaa wafaageedii maxabadu u qabay sida uu la dhaqmaayay saasoo kale ayaan ku ahay buu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin wuxuu u raaciyay halkii dhaqan ee xumaa ee Abu Zarci lahaa inuusan nabiga ku dhaqmaynin nabigu wuxuu yiri ghayra anni la utalliqu nisaa laakiin aniga haweenka ma furo sidii laakiin fiicnayd ee Abu Zarci islaantiisi Zarci uu la dhaqmaayay
ayaan caaishoy kuula dhaqmayaa ayuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam. xadiiskan waa xadiis aad iyo aad u dheer, qofkii rabana uu sii baaran karaa. xadiisu ummi zarcin meeshaan uga dan leeyahay ama aan uga socdo waxaa weeyaan, waa marka koowaadee nabiga calayhi salaatu wasalaam sida dulqaadka ugu dhageysanayo xaaskiisa oo ka sheekaynayso sheeko xariiro haween hore oo nimankoodii ka hadlayay. waa midda labaadee nabiga calayhi salaatu wasalaam inta dhageystay meesha uguma dhaqaaqina reaction ayuu ka bixiyey. nabiga uu la tafaaculay, wuxuu tusay caaisha warkeedii inuu dhageysanayay oo uu la socday. dadka qaar marka ay dadka la hadlayaan waxay iska dhigaan inay ku dhageysanayaan, laakiin kaama warqabaan wax alla waxaa sheegaysa. nimanka qaar haweenkoodii markay la hadlayaan way aamusan yihiin, laakiin maskaxdoodii ma joogto. waxaa laga yaabaa gabadhii maanta dhan daldalmaysa inuusan bal ogeyn waxay sheegaysa, laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku daray insaat iyo istimaac. wuu dhageystay nabiga calayhi salaatu wasalaam sheekadeediina uu la socday. markay sheekadii dhammaatayna sheekadii dhadhan buu u yeelayo wuxuu yidhi ninkii ugu fiicnaa ee haweenka ay sheegteen camal ayaan ku ahay, laakiin haweenka ma furo. dhaqankiisii xumaana nabigu iska reebay calayhi salaatu wasalaam. caaisha waxay leedahay bal nabi maxamedow abi zarcin adaa iiga khayr badan oo iiga fiican mana ku gaaro ayay tiri radiallahu canha. culimmada cilmi nafsiga ama psychologiga waxay sheegaan, waxay dhahaan marka ay ka hadlayaan furuuqda ragga iyo haweenka u dhaxeeya, haweenku waxay hadlaan in ka badan inta raggu hadlaan. yacni aad iyo aad ayay u hadlaan. markaas ay hadlayaanna waxay leeyihiin ama qofka ay war u sheegayaan kama rabaan qofkan inuu ama xal keeno ama uu su-aal ay weydiiyaan uga jawaabo, laakiin waxay ka rabaan in qofkaani uu tuso ihtimaam, inuu dhageysanayo, in agteeda warka ay sheegaysa uu qiimo ka leeyahay. halahaas ayaa micno u sameynaysa. saa daraadeed ayay kula taliyaan ninka ragga ah inuu dhageysto xaaskiisii. haween badan waxa kaliya oo ka maqan waa inuu dhageysto. soomaalidii hore aad iyo aad ayay u liidi jireen haweenka markay hadlayaan, hadalladoodana waxay ka soo qaadi jireen wax khuraafaadkooda iyo maskaxdooda ay u soo dhiibtay. qaarkood waxay dhihi jireen haweenka masaradooda ama gambadooda ayaa la hadasha, yacni hadalkooda micno ma laha. laakiin si kasta oo hadalkaa uusan micno u lahayn, ayada agteeda micno ayuu kala leeyahay. saa darteed waxa ay u baahan tahay waa ihtimaam. waxaa laga yaabaa gabadhii dumarka ahayd inay maanta kuu timaado war tiro badan iyo wax dadka hore ka dhacay iyo waxyaabo ayada ku dhacay inay maanta dhan daldalayso. nimanka qaar ma fahansano gabadhan waxay u baahan tahay. markaas ayuu wuxuu bilaabaya inuu xal keeno. maa sidaa yeeshid, waxaa maa qaadatid, halkaa maa aadid, xal ma rabta. markaas oo kale waxay u baahan tahay waxa qalbigeeda ku jira cid dhageysata oo la tafaacusha oo ihtimaam iyo caatifad u muujisa in waxan ay sheegayso agtaada uu qiimo ku leeyahay. markaas ay dareemaysaa inay tahay qof muhtam ah oo la ihtimaam la siiyey oo la dhageystay. waxa ugu weyn oo ay u baahan yihiin waa inaad dhageysato, ihtimaamna aad siiso, mashaacirtooda iyo waxyaabaha qalbigooda ku jiro iska soo saarayaanna inaad la tafaacusho ayay u baahan yihiin. sidaa darteed mees waxaan kala dhex baxaynaa cashir aad iyo aad u muhiima. waxaadna ka dhex baranaysaan dabeecadaha haweenka ay leeyihiin. caaisha nabiga calayhi salaatu wasalaam waa zawjkeedii, laakiin waa rasuulu rabbilcaalamiin. inay ku dhiirato in sheekooyin haween ay ku sheekaysteen ee uu la timaado waa kalsooni xabiibkeena uu siiyey sala allahu calayhi wasalam. haween badan raggooda waxyaabo qalbigooda ku jira ulama tegi karaan, cabsi iyo walwal ay ka qabaan daraaddeed. laakiin caaisha inay wixii maskaxdeeda ku jiray sheekooyin waa hore looga sheekeeyey, sheeko haween ah, sheeko xariir ah, ee nabiga calayhi salaatu wasalaam uga sheekayso asagoo nabi maxamed ah, howlihiisa ay badan yihiin, qur-aan uu ku soo degayo, cibaadadiisa ay badan tahay, mas-uuliyadda ummadoo dhan ay saaran tahay, haddana in waqtiga badan ay ku bixiso inay nabiga uga sheekayso, nabi maxamedna uu dhageysto. waa kalsoonida uu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaaskiisa siiyey sala allahu calayhi wasalam. ugu dambeyn allah subxaana watacaala ha naga dhigo kuwaana qaata oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku dayda, haweenka nabigana casharo ka barta. ilaahi subxaana watacaala guryaha muslimiinta ee dhisan kuwii sacaado iyo xubbi ku nool allah ka dhigo.
inta dhismi doontana ilaahay subxaanahu watacaala ha u kaalmeeyo oo ha u suurtageliyo. dhammaanteen waxaan isku dardaarmaynaa inaan casharadaas aan guryaha nebiga kala dhex baxayno ka faa'iidaysano. fadlan la wadaag qofka aad jeceshahay inuu kula fahmo casharadaas iyo qofka aad isleedahay wuu ka faa'iidaysan karaa. aad iyo aad u mahadsantihiin. aadna waa idiin salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.